أكبر الله أكبر. deegaanka jabad godane oo ku yaala bariga xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe waa xor deegaankaas waxaa laga nadiifiyay maleeshiyaadkii khawaarijta al-shabaab ee muddo ku dhuumaalaysanayay guushan waxay ku timid dadaalka geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo garab ka helaya saaxiibada caalamka dagaal socday in ka badan 2 toddobaad ayaa ugu dambeyn lagu guuleystay in jabad godane uu ku biiro deegaanada ku suntan halganka iyo guulaha ciidamada qaranka meeshan waa haleela jabad godane waa bariga xawaadley wabi ka bari ah shabaabka hadda koor waxay ku soo galeen si dhuumaalaysiya iskuna day inay ka alqaladeeyaan dadka shacabka iyo dawladda muddo 2 asbuuc dagaal socday ayaa looga saaray meesha midadkoodii baa yaala sahaydoodii baa taala raashinkoodii baa yaala shidaalkoodii baa yaala waxa loo sahay iyo shidaal iyo raashin iyo hub rasaas wateen meesha looga reebay waan arki doontaa midadkoodii iyo meesha daasan yihiin ilaahay baa na kulansiiyay guusha na hantisiyay oo kula wareegnay deegamadan ay soo dhumaalaysiga markii hore ku soo galeen haddeerna baasigooda la daba joogo ciidamadu waa ku maqan yihiin intii uu socday dagaalku waxaa la xaqiijiyay in cadowga laga dilay in ka badan 150 dhagar qabe oo ay ku jiraan 6 horjooge halka tira inta ka badanna lagu dhaawacay kumaad yaalaag baa ku dhacay geeriyo dhaawac taas oo ku qasabtay firxadka iyo kala yaaca kadib markii ay u adkeysan waayeen awoodda iyo weerarka tooska ah ee ciidanka qaranka oo ugu daatay gododkii ay u haysteen meel ay ku nabadgeli karaan intii ay argagixisada ku sugnaayeen deegaanka jabad godane waxay shacabka kula kaceen falal ka baxsan diinta suuban iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyagoo xitaa ka hor istaagay inay biyo ka soo dhaansadaan ceelasha xilli ay jirto abaar saameysay dadka iyo xoolaha waxa xoolihii ay ku baaba'een waa arkaysaan biyo la'aantii ayaga inay isku koobaan ceelka kaliya inta difaac ka xirtaan xoolihii xataa dad soo ciidan soo socdo ma laayeen waxa yaalo ereyadan oo dhan waa arkaysaa dameer baahan arigiyoo leeday geeliyoo leeday wixii oo dhan ay laayeen barakicin baaba bulshada intay u geystaan wax la soo koobi kara maaha yaraa harta waa arkaysiin kabahooda meesha ay uga carareen dharkooda ay siibeen guusha ilaahay subxaanahu wa ta'aala na siiyay ilaahay oo cadawgaas oo u jeedinay ilaahay naga dabageeyo meesha rabaan godkay galaan aan ka dabagalno waan soo wada qabanayna sida uu horay u ballan qaaday wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Axmed Macalin Fiqi waxa warbaahinta gudaha la geeyay deegaanka si shacabka Soomaaliyeed loogu soo bandhigo guulaha ciidamada qaranka iyo jabkii culuslaa ee la gaarsiiyay argagixisada warbaahinta waxa la dulgeeyay godadkii ay qoteen maleeshiyaadku hubkii laga furtay iyo waliba sahaydii ay ka carareen ciidamada qaranka ayaa hadda ku howlan howlgalla baacsi iyo sifayn ah oo lagu xaqiijinayo amniga deegaanada ku teedsan jabad godane si loo sugo xasiloonida laguna ciribtiro haraadiga cadowga howlgalka qorsheysan intii uu socday ciidamada qaranku waxa ay heleen xog sirdoon oo ay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan kayd miinooyin ah oo ay khawaarijtu ku lahaayeen duleedka deegaanka jabad godane ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa la bilaabay tallaabooyin lagu burburinayo miinooyinka la helay si waafaqsan habraacyada amniga ee lagu xaqiijinayo badbaadada shacabka iyo xasiloonida deegaanka guusha ciidamada qaranka ee jabad godane waxay mar kale cadeynaysaa in argagixisada aysan mustaqbal ku lahayn geeyga Soomaaliyeed inta ay joogaan wiilal iyo gabdho u taagan difaaca dalka dadka iyo diinta